kani waa wiil yar oo meel ay biyo doox biyaa dhex taagan isla markaana asaga oo aan ku talagelin ama dareensaneyn in biyo ugu soo gali doonaan ay biyo ku soo dhaceen. waa meel buundaa, dad badan baa ayaa hareeraha ayaa dhinacyada ka taagan. dad dhammaantood waxay u darban yihiin sida ay wiilkan uga badbaadin lahaayeen biyaha ku soo dhacay. qaar baa xadhka u soo tuuraya, qaar derbiyada soo raacaya. wiilkani waxa uu halis ugu jiraa inay biyahani qaataan. dooxa bartankiisa ayuu taagan yahay, dhagax yar buu ku taagan yahay. waxay u eg tahay maalintii ugu dambeysay naftiisa inuu carab iyo laba daan oo dambe ismariyo. aad iyo aad buu uga warwarsan yahay inay biyahani qaataan. imanka halkaas koonaha buundada ama bridge-ka dhakadiisa sallaan baa lasoo dhigay. sallaankaa waxaa soo raaci doona mid ka mida dadka halkan taagan si uu wiilkan yar u badbaadiyo. waad aragtaa waa kaa ka soo degay, imanka sallaanka soo qabsaday, waa kaa soo degay, waa kaa usoo dhaadhacay dhinaca wiilka yar. dhanka wiilka yar buu usoo dhaadhacay, wuu soo socdaa, wuu ku soo socdaa. talow badbaadin doonaa, talow wiilkan meeshaba ka saari doonaa. wuu soo dhaqaaqay, aad buu u farxay, aad iyo aad wuxuu ugu faraxsan yahay wiilkan yar in la badbaadiyo, naftiisii la badbaadiyo. wuu ku soo dhow yahay imanka, wuu qabtay, waa kaa qaaday. maasha allah, wuu ka badbaadiyey kurbadii iyo dhibtii haysatay. waa kaa xambaaray, waa la gurguurtay.